markii lay baray ma aragtay صح idii jiray baalkii na waxa ay soo dirtaa sawiro adeerkii ma ku dhahayo sawiro ii soo dir sawiro waxyaabahaas ii soo dir ku dhihi jiray صح okay sawir adiga oo caadi ah ma ii soo dir ku dhihi jiray ma sawiro qaab daran ii soo dir oo ka codsan jiray sawiro qaab daran wax wada qaab daran waxaan ka biraa Soomaaliyeed dal iyo dawlad meel walba ay joogaan waxaan leeyahay halkani waa hooyga qisooyinka ahiigsi lambar 1 mar walba waxaan ku soo gudbiyaa qisooyin xaqiiqa kuwa muruga oo qalbigaaga taabanaya kuwa aad ku farxi doonto iyo kuwa aan ugu talagalnay bulshada inay ku cimri qaataan mar walba waxaan diyaar ku laahay inaan bulshada u soo gudbiyo qisada adigu kugu dhacday xanuunka badan ama farxadda badan ee qalbigaaga ka guuxayo haddii aad ku cusub tahay channelka fadlan subscribe noo dheh una share gareeya asxaabtaada hayloobin page-kana inaad follow noo dhahdo mar walba waxaan ku leeyahay ha guulaysto jacaylka waa anigoo ah Subar Carab qisadan waxay la soo wadaagtay gabar runtii waxay ii sheegtay inay rabto in gabdhaha Soomaaliyeed iyo wiilasha qaarkoodba xanuunka iyada ay dareentay inayna maaragtay gabar kale Soomaaliyeed ayna dareemin wiilasha qaarkoodna xaqiiqadii waxa ah waxyaabaha ay maanta ay suubinayaan in beritoole haddana iikay dhibaato ku noqonayso waxaan si toos ah u wici doonaa gabadha si ay qisadeeda noogu sheekayso Hello assalaamu calaykum wa calaykum salaam soo dhawow si toos ah waxaan war fadhiyaa kaamirada si aan qisadii aan ula wadaagno bulshada Soomaaliyeed qaasatan team Higgs number 1 ay soo dhawow marka hore wandhow walaal aad iyo aad baa mahadsan tahay waan ku salaamayaa boqolkiiba boqol aan salaamay dadka channelka ku xiran dadkii daawan doona aad u mahadsan tahay waxay ii sheegtay inaad rabto qiso inaad nala wadaagto weli aad rabto inaad adiga codkaaga ku tabiso ugu dambeyn way suuro gashay caawa inaan duubno maxaa ku dooratay in qisadaada aad bulshada Soomaaliyeed la wadaagto waxaan qisadeeda ku doortay in mataqaanaa dumarka marba ay jacayl mataqaanaa gasho sheekadaas ay doonaysan isdhigan ragga Soomaaliyeedna dee dumarka jacaylku uga faa'iideysan dhan walba hadii la dhaho okay waa mahadsan tahay adigoo ka bilaabayo halkaa joogto halkaa ku dhalatay iyo magacaaga si qisadii aad hore ugu gasho magacaygu waa Muxubbo waxaan ku dhashay magaalada Muqdisho ku barbaaray iminkana waxaan ku noolahay Gaalkacyo noloshaada bilow adoo nooga bilaabay yaraantaadii yaa ku soo koriyay waalidiintaada waxay soo koriyay hooyaday aabbahay macaan ilaahay ideysto aniga horta qisada wax ku barmasa waalidkayga markii la dhaho aniga dee gabar markaas soo kacaysaan haayo hooyaday aabbahay waxay iga ilaalin jireen taleefanka dhan bay iga ilaalin jireen inaad telefoon qaadato taleefan haa waxbarasha markaa ku jiray waxba baranay taleefan dhan waa laga ilaalin jiray mareerka gabar kaliya u ahayd mase yaraanad u ahayd mareerka waxa waaye gabar iyo wiil bana u ah sidee gabar iyo wiil aniga u ah macnaha kaliya ay ku dhaleen aabiyo hooyo okay inoo wad marka sheekadaada waxa jirtay aniga hooyo iyo aabiyo waxay iga ilaalin jireen waalidka taleefan waxa la dhaho taleefan qaadashadiisa daawashadiisa isticmaalkiisa dhan walba si fiican maalin maalmaha ka mid ah waxaa dhacday gabar habartaa dhashay oo qalin jebinaysay oo beriyo kale xafladda jaamacadda lahayd oo kale way soo eedeeynaysay marka taleefan cusub bay soo gadatay si fiican taleefankii ewel ay sadakaarkii ka siibtay anigana waxa ku yiraahdaa abaay anima isiisba kuwana haysaniyadu taleefan baa soo gadatay sax hayay tiri waa ku siin karaa ani dib malaha laakiin baxar qabqayna gelisid kuma gelin waa qarsanayaa yaa bikiliya iska ilaalinaya gabadha sidii bay taleefanka igu siisay taleefankii waa haystay saa u haystay inaa masasal iyo filmaan wax ku shushubta maahane internet aan kuma isticmaali karin si fiican maalin baa habartii xaafada timaaday waxay tiri habaryare kaarka iyo qof iyo waa taleefanka sakur habar anigu milihi iyo wax kaar ah waxay tiri taleefan bilaa kaar ah say ku wadataa أنا كاركوسو فريا هيا بانكو يراهدا برير isla isbuucii waxay soo furtay kaarbi keentay masooqatay marka aniga waqtigaas neete waxaan joogaa Puntland oo waxa shaqeynaysa lacagta Soomaaliga iskuulka markaan subaxii aado oo dee break la qaadanayo lacagta break ahaanta liisii ururin jiray waan ururiyaa dukaan aan xaafadaha ahayn fogba waxaan ka soo shuban jiray berbeerka macnaha waxaa ka baqaysaa in lagu arko in la arko dukaanka agteeda wax ka shubto kalido gabartii baa halkan wax ka shubanaysa berbeer si fiican waa ka fogaan jir aagadhan waa ka fogaan jir meel fogba berbeer ka soo shuban jiray dukaan baa rukun iyo aqaaniga berbeerka mar walba ka soo shuban jiray saas u waday yaa kula hadashaa markaas waxaa socday shir marka WhatsApp baa samaystay
dad baa share ii sameeyey, dad badan baa marka asxaab badan baa bartay, laakiin Facebook ma lahayn. Maalin baa taleefankii iskuulka u qaatay, gabar aan isla fariisanaa waxay tiri Facebook ha ii sheeg aan kaa soo qatay. Waxa ku yidhaahday nanu Facebook ma leeyahay, waan ku dhahay WhatsApp baa leeyahay. Saytirsee macnaha taleefana Facebook leen wadataa, adiga Facebook bay ii samaysay isla goobtii anagoo fasalka ku jirna. Duhurkii baa xaafadda imaaday, dad baan bahalkii codsaday iyo aqbalay, isla hadalnay oo waxaa kura marna anaa wax codsanaya marna waa liisoo codsanaya. si fiican. Meeshii waan dhalinyaro ka bartay, rag iyo dumar ka bartay. Marka aniga taleefankayga subaxaas oo dhan wuu dansan yahay, oo markaan subaxii albaabka xiro oo salaada subax usoo baxay ma aragtay, sax baan qarin jiray taleefankayga kaarka marka cidna iguma ogeen, taleefanka hooyaya igu ogaa, laakiin kaarka habaradii keliya igu ogeed. si fiican. qol baa keligii seexan jiray. dadku markay jeegada dhigaan taleefankayga ii dabaysan, jaajarka soo qaadan jiray, halkaasaan dadkii kala heli jir keligii. markii salaada subax tukanayna waa qarsan jiray qaanadaha iyo meelahaas aan gashan jiray shishadooda. si fiican. taleefanka saa u haystay markaan subaxaas oo dhan taleefankii wuu dansan yahay, saa u haystay in muddo aan idna kaarkayga igu ogaanin. hooyaiyo bahalkii waa ka qarqarin jiray, laakiin aabe inaa taleefon wada xitaa waa ka qarsan jiray, ha u sheegina dhihi jiray. si fiican. marka waxaa dhacday taleefankii in muddo markaan watay baan waxaa iska baranay, wiil baa iska baranay, sax wiil baa Facebook iska baranay. wiilkii dalka ma joogin, sax marka wiilkii waa la sheekeysan jiray, wiilkii maalinka dambe waa isku dhacnay. sax. okay, xiriir jacayl ahaan maad u sheekeysan jirteen mise si walaaltinimo u sheekeysan jirteen? ani markii wiilkaas heeto wax jecel iskuma qabnay, asxaabtinimo iskula hadlaynay. si fiican. wiilkii waa isdagaalnay, waa muran anagiyo deerka fadhinay kadhigiyo wiilka la murmeyno, anigu ku hayo halkan muran aabiile wuu joogaa ma ogeyn, aabaa soo baxay deerka. sax maxaa la murmaysaan la qaylinaysan oo dhan taleefankan uu haysto arkaa marmuu taleefanka dafay. isla markii waagaas heetan waxaa isticmaali jiray iimaha ma aragtay, sax isticmaali jiray. marka wuu arkay wiilkan isla hadlay taleefankan yaale, anaga waa ku dhahay sii gormay qaata mar hore. bas aba waa ligala hadlay, kaarkii taleefankii wiitay waa ligala hadlo layidha sidaasa taleefankay ku haystay. sax in muddo markii la joogay oo xoogaa taleefankayga dee lagu ogaada aan watay baa maalin maalmaha kamid a wiil baa isoo codsadeen. halkuu kaa Facebook iga soo codsaday, anigana wiilkan maalinku isoo codsaday ma aqbalin. haddana markii ayaan kasoo wareegatay baa waxaa arkeen uu dad aqbalay wiilkii maalinka dhaweyd, waan aqbalay. saas taa u aqbalay wiilka show online buu ahaa. isla markii wuxuu iisoo diray asalaamu calaykum, anna waxaan irahda wacalaykum salaam. wiilkii sidii waa isku baranay, iskula sheekeysanay, isku dhex galnay. adiga in muddo markaa wiilkaas heeta isnaqaanay oo xiriir jacayl soo bandhigtay, oo walaalihiis buu i bareen, kan hebelooga laatan hebelaayaa lahaa hooyane waa tana, dadkii dhan buu i barbar. si fiican. wiilkii was dhex galnay, markaas isagana wuxuu dhiganayay dugsi sare, sax baa bilowgii u ahaa. sax. halkuu joogay marka? wuxuu joogay magaaladan oo Boosaaso, adiguna halkee joogtay markaa? anigana waxaan joogay Halkacyo. wiilkii waa isbaranay oo dee xiriir jacayl baa mataqaana iisoo bandhigtay oo dadkii wuu i baray, oo halkaas itaan waxaan ku noqnay dad isfahansan. si fiican. dii waayaha waxay socdaan, wiilkii isagoo form 3 ah dhahay reerku waxay dhaheen markii aad mataqaana dugsiga sare dhamaysay jaamacad oo meelahaas lagu dirayaa. si fiican. aniga waxaan ku yidhaahday hayadee, aniga markii wiilku waa isjecleen oo waxaan ku yidhaahday haye, inkastoo dee safarkiisa xoogaa welwel igu ahay inuu iga fogaado. markaas meeqaa wada socotaan? ilaa adiga waxaa markaasi daba socon 17 meelahaas aa wiilka isbaranay. si fiican. 2017. sax. marka wuxuu yidhaahday jaamacad alay diray halkaas ah. okay, jaamacadda sanadkii loo dirayay goormay ahayd? may intuusan bixin maalinkuu jaamacadda dalka tegayay waxay ahayd 20 waxay ahayd 2017 aad isbarateen, 2021 ka tagaa, intaas waxaa wada socotaan 4 sano. laakiinse markuu idhahayo dee maaragtay bahalkii markuu idhahayo jaamacad dibadda ah baa lii dirayaa. sax. 2021 dhexdeed bay ahayd. si fiican. micnaha haddii aan dhammeeyo dugsiga sare waxaa la ii diri doonaa jaamacad. dibadda adhee. si fiican. aniga marka dee safarkiis welwel bay u hayay, anuu dee si
moraalkii yaa ku raadayay dib mala ilaahay ku nabadgeeyay waqtigii waayay way iskureen wiilkii wuxuu noqday imtixaankii foorka uu noqday dugsi sare uu noqday uu ka baxay foorkii صح markaas raadniyo adoo from 3 meelahaas waxay u tiraahday dalka waan ka tegay ilaa haddana ma socotid maxaa jira صفيان way tagayay wili holba ay socotee saan way sheeko ninkii keenay صح waqtigii waa iskuraan maalinta kala sii gurto wiilkii safarkiisii markuu soo dhawaada maaragtay wuxuu keenay inuu mataqaana taleefanka igu dhageysto inuusan taleefaniga qaban inuusan soo hadlin aniga markuu iga qabtana waxaa dhaaniyo in dalka ka tagayaa tahee maxaa sidaan wax ma ka bedeshay saan way holba ku jiray xafiiska aabaan hayo sheeko ila galaa mar walba meermeerin marka adigu aad u jeceshahay anigu aad u jeclahay صفيان بس gabar oo mataqaana walaashay iyadana habartii dhashay marka xaafada joogtay waxaan iyada markii waa la yaqaanayo waxa ku iraahdanay baayo wiilkiisa asna maalmaha ku ark markaas ay xidlaadeen gabar ee marka taqaana ma aragtay iyo saaxiibtay waxay tiri heblaay ma taqaana hawa aqaana heblaay markii saaxiibkeeda dalka ka tagay uu saas u sameeyay markuu tagayna wajigu bedeshay markuu aan wax u leeyahay baayo wiilkaanaydu intuusan dalkadan isbedelku keenin hadda ammaans iyo faraha ka qab anigana naf wax jecel baayo ma quusto صح marka markuu soo wuxuu kala ma aragtay ama markaa wuxuu kala asaga dhibidiisu waa uu jartay laakiin markaa wuxuu mataqaana sida hadleeno hawsha marmar baa mataqaana saa ula hadlay hawsha liitrayo kala ilaawi jiray صفيان hooyo markii way xanaanin jirtay saas wiilkana taleefanka habeen kula hadlaysaa hawsha waa ilaa dhacanaan hooyo hooyo way ogeyd miya inuu xiriir jacayl idinka dhaxeeyo wiilkan aniga asaga halkii ku faani jiray qof wax jecel waa taqaanaa halkani waa hooyga qisooyinka ahiigsi lambar 1 mar walba waxaan kuu soo gudbiyaa qisooyin xaqiiqa kuwa muruga oo qalbigaaga taabanaya kuwa aad ku farxi doonto iyo kuwa aan ugu talagalnay bulshada inay ku cimri qaataan mar walba waxaan diyaar kula ahay inaan bulshada u soo gudbiyo qisada adigu kugu dhacday xanuunka badan ama farxadda badan ee qalbigaaga ka guuxayo haddii aad ku cusub tahay channelka fadlan subscribe noo dheh una share gareeya asxaabtaada hayloobin page-kana inaad follow noo dhahdo mar walba waxaan ku leeyahay ha guulaysto jacaylka oo anigoo ah Subar Carab